السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن أصحابتا وصباح عصب وأن سو أهدي صعد سو محل دهاي مالي واسكا الصعداء مالي قولي اسكا دحبود بودا انتا تليفونك اكسس كشيتو waxaa qofka bini'aadanka waa inuu dhaqdhaqaaq sameeyaa soo maalinba yani sida ii noqoto aan sameeyaa adinkana haddii aad tihiin sideedu kaleeto hooyo guri joog ah waxaa idinkula talin lahaa inaad yani naftiina aadan iloobin oo aa marna socod samaysaan marna exercise guriga ku samaysaan haddii aad gym tagi kartaana gymka iska tagtaan hadda gabadhaa soo socota ujeedin socoday ka imaatay subaxnimo waaye waxaa waaye maasha allah socodka aad iyo aad uu jirka ugu fiican yahay caafimaadka iga tag caafimaadka qayb weyn uu ka qaadanayaa farxadda qayb uu ka qaadanayaa lama soo koobi karo inkastoo oon aan nafteena u sheegno waa soconnaa adeegaad doonaa inta adeeg markaad doonaysid iyo markaa caadi u soconaysid oo inaad maxaa la dhahay hawo soo qaadid aa u soconaysid farqi a u dhexeeyo soo markayaa la isku qasin subaxii hore qofkii baxo boqolkiiba boqol jirkiisa iyo nafsadiisa isbedel uu ka dareemayaa marka aniga marmar exerciseka gurigan ku sameeya laakiin intaa bixi karana maasha allah waan baxaa marmar ma duubo waa iska iloobaaba ilaahay amarkiisa marka soo dhawaada asxaabey meeshaan waxaa iska dhaqayaa maxaa la dhahayaa alaab yaroo ii taalay aan rabaa inaan dhacdhac kasoo siiyo marka ha lagu dadaalo socodku waa caafimaad socodku ma aragteen nin iyo naagba waxaa waaye qof kastoo bini aadana jirkiisu u fiican yahay laakiin annaga soomaali haddaan nahay sidaa uma soconno hadda waddankan aan joogo socodka horta lambar one uu ka yahay waxaa arkaysaa dad 100 sano jiro oo soconaya oo caafimaadkooda jagjag oo wax qabsanaya adduunkooda raacanaya maanta soomaaliya qofka joogana 50 sano jiro waxaa arkaysiin qof tacbaan oo si leecleeca inuu yahay oo subxaanallah aakhiro u socdo oo meel intuu seexda dhahayo ha la iisoo adeego waxa la iisoo qabto waddankaana 100 sano qof jiro oo waxaan ku dhahay shaqaysanayo hooshiisa iyo adduunkiisa iyo gurigiisa iyo noloshiisa iyo weliba soconaya oo exercise sameynaya arkaysiin subxaanallah horta dhaqdhaqaaqa jirku u fiican yahay maskaxdu u fiican yahay qofka cumri dheer inuu siiyo ma ogiye abadan waxaa waaye maxaa la dhahaye cumrigiisa yani soomaalida waxa qofku waayeel markuu noqdo iska seexdaa wuxuu dhahaa khalaas waa soo daalay inta socon kari waa socday laakiin waayeel haddaa noqotid iyo haddaa yar tahayba kullama aad socotid caafimaad iyo nashaad yani energy inaad ka qaadiin moogiye waxaa waaye socodka laguma khasaarayo soo haddii ay jiraan dad afrika iga fiirsanayo oo soomaaliya waxaan kula talin lahaa in uu socodka cumri dheer iyo caafimaad uu leeyahay oo socodka lagu dadaalo sababtoo ah waddankan intaa ka arkayaaba aniga cilmi iigu filanba dad waayeelo oo 100 sano jiro 110 sano wax jira xitaa waa arka oo soconaya maasha allah tabaaraka allah ilaahay cumrigooda ha u dheereeyo marka ha lagu dadaalo insha allah fiidiyowgan waalidiintiina u sheer gareeya socodka ha ku dadaalaano yaasira meesha idin dhibooyo marka asxaabey soo dhawaada waxaa waaye subaxi sabaax alkhayr sabaax nuur waxaa laga bilaabaa socodka iyo hawsha ya waa kana dhacdhaca kasoo siiyey alaabtii asoo kale marka asxaabey ka sheekeeya maalinta ilmaha fasax yihiin guriga saana loo qasaa saan aa ujeedaan aa loo qasaa laakiin hadda waxaan ka dhigi rabaa nal ya warqadaha adduunka waxaa meesha jiifo waxaa waaye maajid saan guys waa kana gurigii waa kasoo shaqeeyey dhagdhag aan kasoo siiyey lagama sheekeyn karo kal iyo laab banaanka dharaa iska soo waray waxaa waaye sida sunuurkiisa u baxayaa guys biraa dabka soo saaray waxaan dhahay basashii iyo wixii shug waxaan dareemayaa inuu taymka iga sii dhici rabo marka meeshaan waxaa ku boobsiinaya maxaa la dhahayaa quraa baradha xagga iigu saaran intana hadda waxaa kusoo shiilay chickenkii iyo basashii yaanyo iyo kabsar aan kusoo daray marka alaab
oo kaale arag ay kusoo baxaysaa chickenkan. marka waxaan kusoo daray maxaa la dhahay hadda waxaan ku dari rabaa xawaaji oo kaari ah. xawaaji kaari ah ku darayaa haddana waa isku walaaqa ya chickenkan ani wax kasta waa u isticmaalaa. soo hadda markay alaabtii isku soo shiilmatay baradhadii oo gooni aan usoo shiilay haddana kusoo daray. beejkayga waxaa laga yaabaa inaad ku aragtid chickenkan dariiqadan maba ka caajisaba. maasha allah tabaaraka allah, ciyaalkana way jecel yihiin aad iyo aadna wuu u macaan yahay. wax yar waxaa kusoo daray barbarooniga oo maxaa la dhahay xoogoo laakiin wuu kulul yahay barbarooniga basbaas uu leeyahay. hadda waxaa ku daraa barbarooniga cagaarka oo caadiga ah oo dabiiciga ah. afaarahan ma aragteen wallaahi maasha allah ciyaalka siday u jecel yihiin ciyaaladiina ku baroobeeya. meeshaana isku soo shiilay hadda lasti waxaa ku darayaa soya sauce. soya sauce-tana maasha allah aaday usii macaanaynaysaa lagama sheekeyn karo dhadhankeeda iyadana. soya sauce aa kusoo daray maasha allah 1 minute wax yar ka yar aan daboolayaa guys. chickenka sidaan quruxda badan oo kusoo baxay. meeshaan waxaa kusoo diyaariyay ceeshka markaa ceeshka dubaayay telefoonka diblaaniga ahaa. kusoo dhawaada rootiinkeena quruxda badan. subscribe-ka noo saara, like-tana noo saara. waan kana anagana meeshaan cambuula kusoo diyaarsanay annaga subaxii iyo habeenkiiba bahashaan ku haysanaa. 2 habeen kadib waa karsanaa maasha allah. quraac hadday noqoto ceesh iyo waxaas ku haysanaba iyo canjeero. marka ceeshka iyo waxaas ciyaalka badanaa usa sameeyaa. sidaanuu noogu soo dhammaaday maasha allah. geedkaasna ma taqaanin maxogaa la dhahaa maxog yaa weligiin ma cunteen maxog iyo cambuulo. aniga maxoga meeshaana ku bartay soomaali kuma kaseynin inkastoo hadda weli aan loof ku ahayn laakiin mar adi uun afka waa iska gashtaa. marka fuufuuna insha allah waa kasoo sameyn doonaa. maxoga fuufuuda baasha soorta laga sameeyo waa isla maxogaas leh dadka soomaalida qaarkood laakiin saas uma fahansano. marka waa kana maxaa la dhahay rootiinka quruxda badan leh sidaas uu nagu soo dhamaaday. khayr badan.